سهل maaha tacliintu subaxii alla keenaba cilmi baasuu siyaado saameeyo koonkee safarkii u dambeeyayna sahal software ayaan idiin sidaayay bulshay hamoogaan marunmaanka ma ku haysay samaysa mareeg ama website adduunyadu ay xogaha ka helaan ma u baahan tahay helidda casharo muuqaal tayo sare leh ka faa'iidaysiga casharo PDF oo tiknoolajiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xaro ku xeel dheer samaynta website-da casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaala magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamogaanin sahal software. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يعني قاهم على محمد جامع يتيم كي سهل سوفتوير والسلام من دمانتي الميل كتشوكتان طافها عالمك وحين كل حجرني عشر ردي كفرها بدنا برشاد كمبيوتر كي حسابتها ما أنت وكلا وحن لنا 10 كحسابتها إنك الصان كعور دارنا يشليته المشغول درتي إنه يسوي رجال ويدينا 10 كدوبه الرجالنا كبحنايا 10 كحسابته ما أنت هذا halkii aynu marinay ayaan ka sii wadi doonaa hadii alla idmo marka hadaad ku cusubtaa website-ka aad soo gashid dhanka hoose aad u dhaqaaqdid markiiba waxa kor lagu soo mariyay maanta Sahal software waxyaabihii u dambeeyay ayaa marka ku muuqanaya website-ka la soo galiyay marka saas ayaan u dhex soconayaa waxaan tagayaa 10kii ugu dambeeyay xisaabta ee la soo galiyay dabcan wuxuu noqonayaa 10kan ayuu noqonayaa marka 10kan ayaan saa u riixayaa 10 حسابته مركان ريحه أو كي صدني السيالات سيكون مقطع مركي وبكا ينقص إحدى عيا هالك لو تلقى 10 كيو كتشرا هدات كعصب تها مركا 10 هالكن أيد كداون كتمر والبا هالكن وحا كتشرا 10 دي هراء كهري صدني السيال كي كهري بكتشرا هالكن ومعلك 10 كدوبية يتكلح لكرسها شوابتنا وحا لو تلقى لحكة حسين كسو قرتين شوابتنا واحد كورسها هالكن مقعاقة إيميل كاغا ويب سايت كشركة دا يو كومنتي جوابته وحي كوصب حيث كورسها كدن وصو بوست كرينسها حسابتي قدام بيسي أي ندرني وحكت جوابي أو اسكو دي كوبي لاتن أرضي سيداي موقتا أرضي قصو هرشقيي وسليبان عبدي مروال بنا دادال كيسين أركي جرني وان لهوري ولا سعني سليبان اسكو دي كواد وحن كلا يهي همبليو لكن هدان جوابتي إناد كشقيسيين كلا عن كلا إيغو جوابتو كذا حكوصة بحدي 31062 iyo 18 haraaya جوابتو لو انتنا يكوصة بحدي 16 markaan ka eego xagga hore xisaabtu waa Salebano waa ku sax laakiin haraagan 18 ka ah waxaan soo dhignaa casharada aad u fara badan oo ka dambeeyay 10kan hadda ka horeeyay baan u jeedaa oo markii de haraaga uu soo haro la sii qaybinayay iyadoo point xagga saraan saarinay marka xisaabtu adkay darteed ayaan filayaa inaad haraagi si u soo qortay pointiga maadan saarin marka the pointing aad ka soo shaqeysay ahayd waad soo shaqeysay isku dayagan uu fiican yahay laakiin kugu siximaayo maadaama aadan pointigii aadan ka soo shaqeyn xisaabta halka aad ka hadhay sidii aan rabay ma aha laakiin isku dayaga aad soo sameysay waxaan ku leeyahay kunjeer hambaliyo Amira ayaa iyana muuqata sida ka muuqata Amira iyana way soo shaqeysay aad buu shaqeysay laftigeedu shaqo fiican bay gelisay laakiin pointiga halkan ay gelisay waa khalad pointiga meel ka haboon ayuu lahaa sidaa darteed Amira iyana iyadoo soo shaqeysay oo hambaliyeenayo laakiin sidii aan rabay xisaabtu jawaabtii aan rabnay ma aha ma soo bixin Cabdiraxmaan ayaa isaguna ii muuqanaya oo isaguna soo shaqeeyay Cabdiraxmaan isaguna sidan ugu soo shaqeeyay sida ka muuqata Cabdiraxmaan waa dadaalay laakiin pointiga halkan uu soo galiyay ayaa isaguna ka khaldan sidaa darteed Cabdiraxmaan adigana ku siximaayo ilaa hadda tooma hayo saddexda arday si sax ah sidaan u rabnay u soo baxday oo jawaabta 10radii u dambeeyay la jaan qaaday Yacquub wuxuu leeyahay waxaan ku raacay Salebaan waa uu dadaalay laakiin ma dhamaystirna adiguna markaa waa dadaashay dhamaystirkii lagama hayo Samira ayaa iyana soo qortay waxa ay muuqata wadadii Salebaan ay martay xisaabta sida Salebaan aan u sheegay qaybaha hore intan hore waa sax laakiin haraagi la doonayay in laga sii shaqeeyo ayaan laga shaqeyn saa darteed sax ma aha xisaabtana ma dhamaystirna ayaan leeyahay Cabdifataax og sida ka muuqata isaguna wadada ay qolada hore mareen ayuu maray isna xisaabta xaggan hore oo dhan waa ka sax laakiin haraagi oo aan rabay in la sii shaqeeyo maadaama casharada haraaga lagu sii qaybinay aan soo dhigay oo aan lahaa ugu yaraan 2 decimal point hala soo saaro 2 decimal point ah oo pointiga ka dambeeya oo halkan point waxaan rabay 2 dhicood oo kale ka dambeeyay soo baxdo
maadaama aynu dee halkan casharo hore ayaynu soo joognay laakiin kuwii ka dambeeyay dee waynu ka shaqaynaysaynu wada soconayba marka isku day fiican baad samayseen laakiin dhamaystirkii ayaa xisaabta ka maqan sidaad ololna wadadii qolada hore ayay martay aad ba mahadsantahay way dadaashay laakiin dhamaystirkii ma hayo bilaad sida ka muuqata xisaabtan pointigan waa ka khalad tanna waa khalad laakiin jawaabteeda dambe bal aan eegno macallin waxay leedahay waan ku wareeray laakiin dib ayaan ugu noqday waxaana ii soo baxday intan 0.64 tan ayaa soo baxday 0.466 tan ayaa soo baxday 0.15 sidii aan doonayay ee xisaabta aan ku soo shaqeynay ee heerka aan marinay ardayda koowaad ee aan u saxayo waa bilaad weeye aad bay u mahadsan tahay 100% iyadoo markii hore khaladay laakiin markii labaad ku noqotay sida ay soo saxday oo qortay ayaana sax ah waana sax haddii aad macasharka soo socda ayaana xisaabta kaga shaqeyn doonaa ardayda mugdiga kaga jiro dhan ama pointiga aan ka shaqeyno dhan waa isla eegi doonaa haddii aad leedmo waxaan leeyahay bilaad hambalyo Amina ayaa ii muuqata Aminayna qaybtan way ka shaqeysay pointiga inuu soo gali 64kii way soo qaatay wayna sii raacisay way sii waday waxaan leenahay hambalyo waadna shaqeysay 100% ayaan ku leeyahay haddii inta kaliya ku soo qori lahaydna intaas ay su'aasha sax kaga ahayd oo inta maasdamaasga imaan lahayd laakiin waxaan ku leeyahay hambalyo waxay soo qortay mid kale oo xigta waa midda labaad bitir way ugu adkaatay ta labaad midda saddexaadna sidan ayay soo baxday ta saddexaadna waa sax intan ayaad ka kaaftoomi lahayd laakiin haddaad sii raaciso ka sii shaqeysay hambalyo ayaan ku leeyahay macallin xisaabtu way soconaysaa ma ka sii wadaa mise may halka ka hadh 10 hore ayaan ku sharaxaan filayaa pointiga laba digit kaliya hadda ka soo qaadatid nf intaas kugu filan inta dambe ka hadhba ha sii wadin xisaabta fadlan faahfaahin macallin waxaan inaad intaadan xisaabta ka gudbin ilaa aan ka fahno adigoo raalli ah aad bay u adag tahay siiba 10kan Amina codsigeeda waan ku tixgelin doonaa insha Allah adiga iyo ardayda kaleba waan sii wadi doonaa ilaa inta aynu ka fahmayno haddii alla idmaanooba og hadeerto in maadaama shaqadiinan aan arko xisaabtii aynu guud ahaan qaybtii sida wax loo qaybiyo aynu isla fahanay just kaliya loo baahan yahay bal 10ka maanta inaan isla ogno haddii alla idmo Rayaan ayaa inay muuqata Rayaan way soo shaqeysay hakada ay isticmaashay sax laakiin haraayada ayaad ka soo hadhay sidaan ardayda horeba ku celiyay dhamaystirka ay ka maqan laakiin waa dadaashay Samira iyana waa la mid way dadaashay way soo shaqeysay laakiin dhamaystirkii iyana ma hayo macallin waan ku noqday sidaas ayaan ugu dambeyn sax la noqotay waa sax laakiin dhamaystirkii ama pointiga ayaan ka shaqeyn sida ay muuqatana qaybahan horena waa sax 31062 way soo baxaysaa dhamaystir baa maqan pointiga ka maqan tanna pointiga ka maqan waa sax tanna 39983 pointiga ka maqan waa sax saddexdaada waa sax laakiin pointiga ama decimalka xagga saraan saarayay ayaa ka maqan laakiin waa ku sax 10ka maanta si fiican u daawo kaas ayaan ku sharaxi doonaa hadii aad leedmo khadra waxaan ku raacay Salebaan ma sha Allah khadra waa dadaashay Salebaan ku raacday waa dadaashay labadiinuba dhamaystirkan baa ka dhinaa Ali uu soo shaqeeyay tii koobaad uu soo dhamaystirtay 64 intaas ayaan ku saxayaa oo waa sax tii labaad 9659.46 isna intaas ayaan ku saxayaa isna waa uu sax xabadii saddexaadna kaama hayo haddaan hoos kaga soo shaqeyn waa arki doonaa khadra xisaabtan waan fahmi waayay ay leedahay waa khadra isla eegi doonaa Ali sorry xisaabta degdeg baan u qoray qaarna waan ka booday marka sidan ayaan ku soo saxay Ali 3102 taadi hore ayaa sax ahayd ku noqotay ayaad basi waashay reerka statement gaaraga taadi hore ayaa sax ahayd Ali taana 96 iyana taadi hore ayaa calow sax ay taadana jaadana 39983.15 ha xabada dabaan ay ka daba tabatimi marka hadaan kugu eego labadii hore iyo tan ayaa ku sax laakiin labadan kale aad ku noqotay waa ka khalad weeye Farax Abdi ayaa isna inoo muuqda Faraxow xabada koobaad waa khalad sida aad ka muuqato jawaabaha ardayda soo qoran ama aan ku kaga shaqeyn doono 10ka soo socdaan kaga shaqeyn doona xisaabtan hore ee aad ka adag laga wada cawday talabaadna waa ka khalad 7959.46 ma talabaad waa ku sax raalli ahaw waxa pointiga wad soo qortay waa ku sax ta saddexaadna 39983 iyana waa sax laakiin haraagi oo aadan ka sii shaqeyn ayaa muuqanay bartii haraga ay kaga hadhay laakiin isku day fiican waa hagaag Amina ayaa ku soo noqotay macaan sidan baan ku soo saxay bay leedahay 64 waa ku saxsanoo ku saxay haraagan sideedan haraaga de ka bahar intaas sax ah tanna 15 ka sax ah 399 waa ku sax tan kalena 9759.46 saddexduba waa ku sax hambalyo ayaan ku leeyahay Amina
واكو صح وليبا كوي أضايق كبقيسي وذي كسر شقيي ويجي مقطعان لفتة بين حسابتي فهمتين لكن حوجا جيس النما يوحب بعنتها سمر يا إن أدخل بيسان حسابتي تكون نقطان حسابتي أتكلم ميزانتان أو بوينتي هذا المركز كحتى ميزان وينجا 10 كسر شقيي طبعا 10 كور حساب تقريبا يعني سوشر رحي أو مدة ميل عن سوق جرسيي فضلا 10 سكوة النقاة أو مركز تداو 10 قيبت كهاللي ودم بتبوح جاري كعاود نوتها عبد الرشيد وحولي هاي عبد الرشيد محمد السلام عليكم معلن تان وحي صباح 3106.9 وكا خلط هرا لبا تاسوا خلط تكل 9759 هرا 9759 وصح او 46 كي تسوي على سيسا بسوقه تاوقو صح 39983 iyo hara saddex tan haraagi un ba ka dhiman iyana waa inta hore waa ku sax wad shaqeysay hambali Cabdirashiid Cabdirashiid wuxuu soo qalay soo macna xisaabta assalaamu alaykum macna waxaad moodaa inay ardayda markay gasho adayga miyakooda lagu rafanayo marka macna dhowr jeer noogu celi xisaabtan kan oo kale ilaa aanu ka fahno insha Allah ilaa aad fahantaan mooy maba gudbayo sidii qaacidada inoo ahayd ama ballankiinu ahaa xisaabta ilaa laga fahmo oo ardayda in saddex meel marka loo qabay laba kamid ay si caadi ah leeyahay uga shaqeeyaan ma gudbi doono hadii alla idmo sida aynu uga socono insha Allah ويدي هدي الله يدمو وقت بين هيسناه وين شغين دونها وين سيوي دونها حسابتها عبد الرشيد معنا حسابته ايه وانكب دبا ايمي بولي هي وحنا كوصحي سيدان 31062.64 وصح وادنا اسيبتي هراغا سديدا نبا ما كان بان انت هداي سو qortay intaas ayaa ugu filan ba xisaabtana waan fahmayaa in haraa uu sii socday hada labadan aad soo qortay ka fahmiyeen haraa sii socday saad darteed waa ku sax in macallin qoraalka badan raali ka ahaada arday baan nahayo waan rafanaynaay soo rafto oo ujeedada aan leenahay waa in aynu wax isla faahno oo aad wax iga faa'iidaan dabadna aad waxa aad iga faa'iideen aad bulshadiina u sii gudbisaan meel kasta oo daafaca caalamka ka joogtaan rafashadana waan u dul qaadanaya waan akhriyayaa ilaa aan isla faahno ma gudbi doono hadii la idmo casharka maanta aan isla eegno isnoo ku eegi doono xisaabtan laftigeeda aad ku sarafateen bal isla eegi doono kadibna layla aan ka diri doono insha Allah حسابته مركا 10 maanta aan ku eegno waa 10kii afartanaad waana xisaabta divisionka 10kii kooytoonaad ee noqonaya xagga qaybta waxaan ku eegi doonaa layligii 10kii ka horeeyay aan idin diray ee aad ku rafateen ayaan ku eegi doonaa oo aan ka shaqeyn doonaa u fiirso 8 qof ayaan xoo qaybinaa xisaabta halka ku jirtay faraha badan leh xisaabta sida loo akhriyo 10 gaar ayaan ka sameyn doonaa sidaynu ballankay aynu ku ballanay hadii alla idmo lambarka ah 81 iyo waxaan soo qaybinayaa 28 لكن سيده هورت سيده u qaybo ma qaybsamayso lambar ku xigayaan raadsanaya 86 ay noqotay 86 marka loo qaybo 28 lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa 3 ayaa waxaan ku dhufanayaa 28 marka 3 la isku dhuftana waxa ka soo baxay 84 waxaan filayaa xisaabta isku dhufashada wanaga aad soo jilcinay mugdi kuma jiro 84 86 ayaa waxaan ka jarayaa marka 84 waxa ka soo haray marka la kala jarana de 2 ayaa ku soo haraya 2 iyo 28 isuma qaybsamaan waxaan la soo dogayaa godka ku xiga waa 9 in 86 waan ka shaqeynay saalka marka la soo dogo waxay noqotay 29 28 qof ayaa waxaan u qaybinayaa 29 lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa hal ayaa waxaan ku dhufanayaa 28 waa 28 ka ayaa ka soo baxaya dabadna 29 iyo 28 marka la kala jaro waxa ku soo haraya hal iyo 28 isma qaybsamaan godka ku xiga ayaan u guuriyay lambar 7 ayaa la soo dogay waxay noqotay 17 haddana isma qaybsamaan waxa badan 28 ka ayaa badan si aad darteed qaacidada xisaabta qaybinta waa inay soo dhigay markay aan god la soo degay godka lama soo degi karo ilaa aan eber dalacdo eber ayaan kor saaranayaa dalacanaya markaan eber dalacdayna waxaan la soo degayaa lambarka marka ku xiga ayaan la soo degayaa oo 5 ah dabadna markaan 5 la soo tago xisaabtu waxay noqotay 175 markaan u qaybiyo 28 na lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa lambar 6 ayaan ku dhufanayaa 28 marka 28 lagu dhuftana waxa ka soo baxaya 168 tabuugaaga rafka ka soo shaqeey oo xisaabta wixii gaargaar isugu soo dhufso markaan 6 ku dhuftay 28 na 168 ay noqotay 175 markaan ka jaray 168 na waxa ka soo baxaya 7 haraa ah 7dan waxaan la soo degayaa marka 7 soo qaybsan lambar ku xiga ayaan la soo degayaa 4taas ayaan la soo degay 74 ay xisaabtii noqotay 74 28 markaan u qaybay lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa 2 ku dhufo 28 waxay noqonaysaa 56 74 ayaan ka jaray 56 dabadna waxa ka soo haraya halkaas markuu soo haro 28 iyo hal isma qaybsamaan sida ka muuqata
waxaan leeyahay 74 sorry 56 marka laga jaro waxa ka soo haray 18 iyo 28 isuma qaybsamaan sidaa darteed markaas ayaan waxaan u baahanayaa point oo arday badan oo ka soo shaqeysay halkaas ay kaga hareen oo waxay soo qoreen 31062 iyo haraastay tonos ay soo qoreen halkaas kaga hareen sida Salabaan Cabdi iyo arday fara badan inoo muuqanaysay xisaabta markay ka harmaysid in la xisaab hore ayaan ku soo sharaxay sida pointiga loo dalacanayo si wada xisaabtii 18 marka point ayaan kor saaranaya marka point kor saarto halka waxaan ku darsanayaa eber xisaabtu waxay noqotay 180 ayaan waxaan qaybinayaa 28 lambarka ugu dhow marka waxaan noqonayaa 6 ayaan ku dhufanayaa 28 waxay noqonaysaa 168 waan kala jarayaa waxa soo haraya 12 hal point ayaan haystaa Soomaaliya 6 ayaan haystay 12 ka hadhmaayo waxaan si saaranayaa eber kale ayaan halkan si ku sii qoranayaa point kalena laga baahnaa sida casharadii hore ku soo sharaxay 120 bay noqotay 120 ayaan waxaan qaybinayaa 28 lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa 4 ku dhufay 28 waa 112 120 marka laga jaro 112 waxa ku soo haraya 8 hadhaaya halkan marka waa pointiyo 8 bartaas ayaan xisaabta kaga hadhaya xisaabta 2 point hadaan haysto oo 64 aan haysto decimal number bartaas kaga hadhaysa jawaabta ku soo baxaysaana taas sare ayaad soo akhriyaysaa soo qoraysaa waxaad marka iska ilaalinaysaa aan kala talinaya marka xisaabaha soo dhigisid qaabkaas oo dhigisid iska ilaali xisaabta kala jaridana iska ilaali markaad kala jarisid lambarka aad la soo degisidna si taxadar leh marba lambar la soo deg san hore u soo sheegnay laba lambar lama soo wada deegi karayo ilaa kor eber lagu dalacdo mooyee waxaad kaloo markaas isha ku haysaa lambarka halkan yaala wuxuu doon noqday lambarka ugu dhow ayaad u saaraysaa lambarka inuu ka bato lama aqbali karayo waxaan filayaa tusaalaha inaad si fiican la fahantay tusaalaha labaad casharkeena maanta oo isna ku saabsan casharkii hore aan diray isna aan isla eegno arday badan waxay yiraahdeen 101 sidee lagu qaybinayaa xisaabta halkan oo lambarkan ayaa wuxuu noqday 3 digit adayg buu markaa galay 101 iyo 985 ayaan isu qaybinayaa eeg 101 waxaan u qaybinayaa lambar 9 isu qaybsan mayso lambarkan weyn haddana waxaan leeyahay 101 lambarkan ku daro 98 ayay noqotay 101 iyo 98 haddana isu qaybsan maayaan lambarka ku xiga ayaan raasanayaa wuxuu noqday 985 ayaan waxaan u qaybinayaa markaa 101 waxa ku muuqanaya markaa in markasta numberka halkani aad halkan guuritaanka uu ku khasban yahay waxa halkan yaala waxa laga duulayana waxa weeye in numberka number u dhow aad u qaybisid 985 ayaad markaa waxaad u qaybinaysaa 101 banaanka ka soo shaqeyso lambarka ugu dhow markaa raadso xisaabta halkan 500 baa lagu oran karaa u qaybi lambarkan 1000 baa lagu oran karaa halkan u qaybi just mar walba maskaxda ka shaqeysi halkan 3 digit haday noqotay halkan 3 digit waa khasab inay noqoto 3 digit ayaan markaa isu qaybinaya waxaan filayaa markaa inaad tan aad ila fahantay wareegga ugu horeysa bilowga ugu horeeyo 101 markaa 985 marka loo qaybiyo lambarka ugu dhow wuxuu noqonayaa 9 ayaan waxaan ku dhufanayaa 101 markaa 9 ku dhuftana 909 ayay noqonaysaa isku dhufso kala go markaa waxa ka soo baxaya 76 markaan labada kala jaro 76 marka ay soo baxday waxaan raadinayaa lambarka ku xiga ayaan la soo degayaa 76 in la 100 u qaybsan mayso lambar 7 ayaan la soo degayaa 767 ayay noqotay 101 ayaan markaa u qaybinayaa 101 lambarka ugu dhow markaa wuxuu noqonayaa lambar 7 ayaan ku dhufanayaa 101 waxay noqonaysaa 707 waxa kala go markaa waxa ka soo baxaya oo ka soo haraya 60 ayaa ka soo haraya waayo 7 ka jar waa eber 60 eber sidii u soo degaysaa 7 ka jar waa eber 60 kaas markuu soo haro halkana waxaan marayay lambar 7 ayaan marayay ha khalkhalin oo xisaabta isku wareerin adigu halka aad maraysa calaamadso waxaan marayay lambar 7 ayaan la soo dogo marayay lambar ku xiga ayaan la soo dogayaa waa 6 xisaabteedu waxay noqotay 600 ayay noqotay 600 ayaan markaa waxaan u qaybinayaa 101 lambarka ugu dhow markaa wuxuu noqonayaa lambar 5 ayaan waxaan ku dhufanayaa 101 waxay noqotay markaa 505 waxaan hoos dhigayaa 600 dabadna kala go waxa ka soo haraya 95 markay ku soo hadho waxaan la soo degayaa lambar 6 ayaan la soo degay ilaa 95 uma qaybsato 101 oo lambarkan ayaa weyn oo dadkan ayaa tiradooda fara badan yahay lambarka ay hadhayaan la soo degayaa waa lambar 6 pointi ma saarayo ilaa halkan xisaabtu ka dhamaato lambar 6 markaan la soo dego xisaabteedu waxay noqotay 756 lambarka ugu dhow 101 na wuxuu noqonayaa lambar 9 oo mar hore aan adeegsaday 9 markaan ku dhuftay 9 waxay noqotay 909 909 waxaad ka jartaa 956 waxa ka soo baxaya waa 47 ayaa ka soo haraya
xisaabta arday badan halkaas ka hadhay maysid 47 oo maxaan samaynayaa eber ayaan la soo degayaa waxaan leeyahay eber ayaan halkan dhiganayaa point ayaan xagga sare saaranayaa 470 xisaabtii noqotay markaan point saartay 470 markaan noqoto point inu kor saaran yahay lambarka ugu dhow muxuu noqonayaa 470 ee 100 loo qaybin karayo waa lambar 4 ku dhufo 100 wuxuu noqday 404 hoosta ka xariiqo kala jar waxa soo haray 66 ka hadhi maayo sida hore ku soo sharaxay 2 point ayaan raadsanayaa ama 2 decimal number ayaan raadsanayaa 666 noqotay eber ayaan halkan dhiganayaa 660 ay noqotay oo pointina kor mar hadii saaray point kala saari maayo 660 marka loo qeeyo 101 qofna lambarka ugu dhow marka waa 6 ku dhufo 101 waxa ka soo baxaya 606 kala goomar konton afar ayay soo dhigay bartaas aan xisaabta ka xaraya jawaabtan qorayna waxay noqonaysaa 9759.46 ayuu cala qof helaya numberka ugu dhow intaas ay noqonaya xisaabtaasna halkaas aan ka xaraya waxaan filayaa haddii aan yar dadajiyay videoga daawo ku cilcisho waayo time-ka aan ku xisaabtamay ma rabo in saacaduhu ama waqtiga daqiiqadaha ay farabataan oo ardaygu ku caajiso xisaabtii marka ku cili 10 kan oo marba joojiso ku cisho tusaalaha saddexaad ee aan 10 ku eegayo oo ah layligii aan weegii hore 10kii hore diray isla kii hadir ayuu la mid yahay waxaan filayaa inaad oran lahayd macallin waxba ha sharaxin waan fahanaye ka gudub inaad oran lahayd aan jeclahay laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku sharaxo isna waa intii oo kale 19 ayaa xisaabtan la yiri u qaybi lambarkan ayaan doonanayaa waa 7 iyo 9 isuba qaybsamaan kan kale ayaan ku darsanayaa 75 ayaan leeyahay 9 qof u qaybida way soo qaybsamayaan halkan ma aadi karayo oo hawran 759 qayb ha aadin labada lambar way soo qaybsamayaan isoo qaybi lambarka ugu dhow wuxuu noqday lambar 3 waxaad ku dhufataa 19 waxay noqotay 57 kala go waxa ka soo baxay 18 iyo 19 isoo qaybsan hal qof ayaa badan oo min hal uma siin karayo oo kan ayaa yar oo 18 سأدرت وحن كو خصبنا مركل نمبر 9 كلا سدوغو حسابتنا مقاوي كور 189 ay noqotay 189 waxaad u qaybisay 9 qof على قف waxaan siinayaa marka lambar 9 baan siinayaa $9 baan siinayaa 9 ku dhufa 9 waxay noqotay 171 iyo waxaan kala jarayaa 189 haddana waxa ay soo haray 18 sidoo kale uma qaybsamayaan leeyahay lambarka ku xiga lambar 6 ayaan la soo degayaa waana calaamadsata halka aad marisid oo maxaan ku ogaanay lambar 9 hore ayaa la soo degay labadana waan ka soo shaqeeyay 9 waan ka shaqeeyay 6daas ayaan marka la soo degayaa xisaabtu waxay noqotay 186 lambarka ugu dhow 9 wuxuu noqonayaa isla 9 buu noqonayaa 9 ku dhufo isna wuxuu noqonayaa 121 noqday buu noqonayaa 121 markaan ka jaray iyo 186 kala jarayna waxa ay soo haray 15 haddana uma qaybsanto 19 lambarka ku xiga la soo degay 8 baan la soo degay waxay noqotay 158 waxaan u qaybiyaa 19 lambarka ugu dhow marka wuxuu noqonayaa 8 ku dhufo 19 waxa ay soo baxay 152 waxaan ka jarayaa 152 waxa iga soo baxaya 6 baa ka soo haray oo 8 laba ka jar waa 6 15 way isgoorsanayaan waa eber 6daas waxaan la soo degay eberkii ugu dambeeyay xisaabta ay la soo degay 6 bay noqotay 6dan ayaan u qaybinayaa 19 lambar 3 ayaa igu dhow 3 ayaan ku dhufanayaa 19 waxa ka soo baxaya 57 iyo 6dan ayaan kala jarayaa 3 ayaa haray soo haray bartaan kaga haray meesha xisaabta sii wad point kor saar ama joogsi kor saar eber baan halkan nasaar dhiganayaa 30 bay noqotay 30 iyo 19 lambarka ugu dhow wuxuu noqday lambar 1 ku dhufo 19 waxay noqotay 19 kiisba soo baxay 30 waxaad ka jartaa 19 waxa ka soo haray 12 eber ayaan ku shidarsanayaa ilaa point kor biisana waxda ma ku noqon maayo 12 kan aan eber ku darto 110 bay noqotay 110 waxaan u saarayaa 19 maxaa u dhow lambar 5 19 ku dhufo waxa soo baxay 95 marka 95 laga jarana waxa ay soo haraya 15 halkaas ayaan markaa kaga harayaa 15 kaas dabadna waxaan soo qorayaa just inta kaliya ayaa igu filan inta aad soo qortid just waan fahmi karayaa in xisaabi deeharaa sii jiray wayna ii dhowdahayo marka 39983.15 lagu dhufto 19 intan way ku dhawaanaysaa wax aad u yar ayaa iska dhimaya marka intan qayb ahaan way ku dhawaanaysaa way keenaysaa su'aalaha saddexaadna sidaas ayaan kaga baxaya waxaan marka concept guudkaasi iyo si guud ku fahansiiyay halka number kasta wuxuu doonayo noqon karaa tiradu way badan karaysaa halkana wixii la doonayo lagu qori karo tiradu fara badan karaysaa
قاعدة حسابته قيمته تي أن صور دقي وحبكم عن درين هذا أفرز فيديو هذا 10 كان دوبا يوم واحد ديري هبية راتي أما قاعدة عصب عن استعماله متشرو أنت أنا هوريك الصور دقيقون بان استعماله حسابته نوبا فرباتي جود كانوا يفرباتين مركا دي وحيد اللي دونا يهلك لو قوري كريا هل كان وحيد اللي دونا يلو قوري كريا مر والبا قاب كاس أي حسابته قيبنسا بوينتنا قاب كاس أي هو يسا بوينتنا لبدي شيء هذا كل شيء يصير حسابتي سجار فرح كفاد وحي كلا سيسو على كارد انت انا يا لا بوينت تا قاتد اتسنف وهذا 1 كان محودق ما هذا 0.115 هدي لو يراهدو يعني اما 0.1 هدان بكو يراهدو 5 كان بس كرب 0.1 هدان كو يراهدو وهل دولار marka loo qeybiye meel kamida waa 1 senti marka halkan waa 15 senti way de wax kale halkan sii socdaa naf xisaabta ama xooli la qeybinay saameyn weyn ku yeelan maayaan oo $1 hadii 10 meel loo qeyb meel kamid hadaad sheegtay isna nafta halkaas kaaga filan halka kaga had xisaabta guud ahaan marka xisaabta qeybta waxaan rajaynayaa in aad ila fahanteen xisaabtan waxaan idin dirayaa saddexdan layli idin muuqanaya waa halkan godkan la waa boqolaad sidii oo kale lambarkan boqolka saddexdan dhijid u qaybi sida ku soco decimal haday gashana ka sii saar laba god kaliya ka soo reeb saddex god waxaan eegi doonaa jawaabta ardayda ay soo celiso hadii alla idmo hadii aad isku raacdaan dhamaantiin aad saxdaan oo hal arday kaliya oo khaldan ama laba ay khaldan laakiin boqolkiiba 99 aad saxdaan waan ka gudbiyaa xisaabta ku xigta ayaan bilaabi doonaa hore ayaan u soconaya hadii alla idmo hadii aad khaladaan oo aad soo saar weydaanna waxay noqonaysaa inaan marka tusaaleel kuwan aan layligan aan idin sharaxo xisaabta ku xigta layliye kale aan diro ilaa aynu isla fahanana hadii alla idmo ballankeenu ma gudbi doono marka waxa kale oo looqada igala soo hadlisay arday aan isku badayin oo yir macal baasha adag bi gashay ardayda waxaan ku dhiirigelinayaa de ardayda ka soo shaqeysayba kalsooni ay ku qabaan naftooda ay isku dayeen marka fadlan ardayda ila soo hadashay way isgaranayaan ee looqa igala soo hadlay idinko mahadsan waxaan ka codsanayaa in aad casharadii hore ee koytonka xisaabaad ee qaybtan ka soo sharaxay inaad ku noqotid oo aad ku celcelisid isla markaana aad tan la markaa la jaan qaadid aad khaladid be waxaan ka codsanayaa xisaabta inaad isku dayid oo aad soo qortid sidaas ayaan ka codsanayaa waa anigoo ah macallin maxamed jaamac iyo tiimkiisa Sahal Software oo isku duuban oo dhamaantayo idinku salaamayna salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh